وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، kasoo qaybgalayaasha kulankan aad u qiimaha badan ee waqtigooda soo horay ee ka kala imaaday degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir, waxaa idinku salaamayaa salaamta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka dib runtii galabta dareenkayga lama soo koobi karo, maxaa yeelay waxaan kasoo qaybgalay kulan isleeyahay runtii si gaar ah maxaan ku yiraahdaa ugu xiiso qabtay. maxaa yeelay waa dareemi kartaa sheekadeena inta ay qaadatay iyo saacadaha badan. waxaa islahaa khudbadii ka hor aad soo dhamey kartiin barnaamijka oo wixii oo barnaamij iyo macluumaad aad isla wadaagi kartaan, laakiin sheekadeeni iyo maxaan ku yiraahdaa isfahankeeni ayaa ilaa hadda soo gaaray oo maxaan ku yiraahdaa galab la sii maraayo. taana waa ku faraxsanahay. waxaa waaye dadka markay isku yimaadiin dad muddo isku xiisay oo maxaan ku yiraahdaa aan ayaamahan dhan aan is arkin ama muddo dheer isugu dambaysa laga yaabaa dadka inay ka mid yihiin anigoo kale. hadda dad badan oo aan maanta la kulmay runtii muddo maanan is arkin bilooyin ah. taana ilaaha ugu mahad celinaynaa maanta inuu suurtageliyey. intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qabanqaabiyaashii kulankan, si gaar ah haddaa u xuso Cabaas oo hadda aad maqlayseen, iyo Cabdishakuur iyo Anas yaa soo qabanqaabiyey barnaamijka oo maxaan ku yiraahdaa qabanqaabada iyo maxaan ku yiraahdaa aad dadku u hagaayay oo maxaan ku yiraahdaa la'aantood barnaamijkan oosan qabsoomeen. intaa kadib waxaan rabaa in aan isbarano. kulanka sidoo Cabaas sheegay waa kulan isbarasho guud ah, maadaama dadka qaar aysan isgaranaynin. horta waxaan filayaa dhammaantiin 90% inaad isgaranaysaan, laakiin dadka maxaan ku yiraahdaa ururka ku jira oo laakiin aan maxaan ku yiraahdaa hore loo arkin inay jiraan laga yaabaa. dadkaas isbarashada gadaal danbaan ka dhiga doonaa, laakiin ahamiyadda aan usii galo meeshaan uma imaan inaan wax badan dhaho. waxaan rabaa wax yar inaan idinka xasuusiyo aas-aaska ururkan sida uu ku bilowday, halka uu maraayo iyo heerarkii uu soo maray iyo waxyaabaha uu hiigsanayo. magaca haddaan ku bilaabo, magaca golaha barbaarta araggala wuxuu ku yimid maadaama urur magaalada uu ka wada jiro oo urur la wada qaatay, in anagana urur magac xoogaa ka agdhadhow laakiin ka duwan inaan keensano oo golaha ah. dhalinyarada dad badanaa magaalada maxaan ku yiraahdaa dhalinyaro isticmaalo. waxaan isniri dhalinyaro meesha ka isticmaali lahaydeen wax u dhigma ama soo dhaweyn kara ma jiraan, barbaarta soo dhaweyn kartay. golaha barbaarta markay intaas marayso waxaan ku darsanay araggala, maadaama sifadeena ay tahay oo aragga aan la'nahay. sifadeennana meel kasta aan doonayna in aan maxaan ku yiraahdaa aan ku meel marno. waxaa ilaahay mahadiisa sanado ka hor aniga hadda idin hadlayo ma jecleen in la dhaho indhoola taha ma jecleen. maantana waxaan jeclahay in aan ku faano inaan araggala ahay oo maxaan ku yiraahdaa golaha barbaarta araggala ay noo maxaan ku yiraahdaa dhisan yihiin. aadaan ugu faraxsanahay runtii, maxaa yeelay heerarkii lasoo maray dad badan oo meeshaan fadhiyo kulley qaarkood xataa laga yaabay ilaa hadda inaysan ogoleen in maxaan ku yiraahdaa sifadooda la sheego, laakiin sifada waxaa waaye ammaan iyo maxaan ku yiraahdaa in aad sheegto waxa aad tahay inaad sheegato. intaas markaan ka gudbo, golaha barbaarta araggala waxaa la aas-aasay sanadka 2020, laakiin fikirkiisa wuxuu soo jiray 2016 iyo 17. intaana waxaan ku fikiraynay in aan mar uun aan sameyno urur dhalinyaro oo ku hadla dadka aragga naafada ka ah, say dadka qaar isticmaalaan ama dadka araggala. dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada in aan maxaan ku yiraahdaa dhiirigelin u sameyno, maadaama anagii aan maxaan ku yiraahdaa sifada arag la'aanta aan la noolnahay. waxaan jeclaysanay in maskaxdeena, caqligeena iyo garaadkeena aan maxaan ku yiraahdaa kaga faa'iideysano, uguna faa'iideyno dadka walaalaheena ah, gaar ahaan dhalinyarada aragga naafada ka ah. ururkan markii la aas-aasay 2020 waxaa naga soo dhex galay cudur coronavirus liira oo ilaa hadda magaalada ka jira. runtii barnaamijyo badan oo noo qabsoomi lahayna asiga maxaan ku yiraahdaa nagu hor istaagay. waxaan rajeynayaa doo ilaa yiraahdo barnaamijyadaas soo wadnay iyo kuwa ka badanba inaan qaban doono.
waxaa laga yaabaa dhalinyarada maanta inta joogta qaarkood golaha barbaarta aragala inay dhegta ay ka maqleen ay isleeyihiin maxaa ku dhaha in laga xigo waxaa idiin sheegayaa golaha barbaarta aragala qof kasta oo meeshaan maxaa ku yidhahdaa jooga iyo dadka nagala socon doona guurka maqli doona iyo dadka ka tirsan dhammaan in aysan jirin qof ka xigta maxaan ku yidhaahdaa golaha barbaarkana annaga uu noo fulan yahay in cid ka xigta aysan jirin dhalinyarada aragga naafada ka ahna u ololeyn doono horumaradooda kana shaqey doono hadduu ilaah yidhaahdo intaas markaan kasoo gudbo markii aan ka imaado aasaaska ururka waxyaabaha uu soo qabtay adinka waa dareemi kartaan waxaa ugu weynaa barnaamijkii ramadaanka aan qabanay tartan aqooneedka dadka baahiyaha gaarka ah qaba barnaamij la dhihi jiray oo ka bixi jiray Dasin TV waxaan kaloo qabanay barnaamij la yidhaahdo lici macnaha waa ciidsi ardayda aragla oo ardayda aad u yaryar ay ahaayeen barnaamijkaasna wuu noo qabsoomay insha allahu waxaa idinkugu bishaareynaayaa oo maxaan ku yidhaahdaa aan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo haddii aan wada shaqeyno oo maxaan ku yidhahdaa qof walba maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo garaadkiisa oo nagu kabo in aan qaban doono barnaamijyo intaas ka badan iyo kuwo maxaan ku yidhahdaa waxtar badan noo lahaan doona waxaan nahay sidaa ogtihiin dad oo maxaan ku yidhaahdaa aragga naafo ka ah sidaa darteed waxaa u baahan nahay inta uu u baahan yahay qof kale oo maxaan ku yidhaahdaa arag qaba ama dhalinyaro ah ee magaalada jooga waxaa u baahan nahay inaan shaqaysano waxaa u baahan nahay maxaan ku yidhaahdaa nolosha qeybaheeda kala duwan oo dhan inaan sameyno hadday ahaan lahayd waxbarashadii dhan walba inaan qabsano ayaan u baahan nahay taana waxay ku suurtageli kartaa in aan annaga iskaashano haddaan iskaasho weynana maxaan ku yidhaahdaa qof walba goonidiisa uun oo u ciilaan doono laakiin haddii aan iskaashano aan ka bixi doono ciilka oo aan noqon doono dad noloshooda maxaan ku yidhaahdaa horumaro badan ka sameeya nolosha sidaa ogtihiin qof ma jiro hadda maanta maxaan ku yidhahdaa gacan qabasho gaara helaya ma jiro maxaa yeelay qof walba wuxuu aaminsan yahay in tiis uusan ka badin karin marka annagana wuxuu ilaahay awood noo siiyey laakiin awooddeena ma aragno in aan wax qabsan karno markaan aragno oo maxaan ku yidhahdaa bulshada markii aan la kulmayno kaleeto ama inaan bulshada wax ka bedelno markaan rabno waxaan wax uga bedeli karnaa in aan annaga wax iska bedelno marka hore in aan annaga aamino inaan wax qabsan karno in aan annaga aamino inaan horumar samayn karno in aan aamino in inta ay u baahan yihiin dhalinyarada kale ee asaageen ah in aan u baahan nahay runtii soomaali waxay tidhaahdaa bugto badan iyo baahi badan waa la isku nacaa sidaa darteed dhalinyarada aragga la haddii aynu nahay waxaan rajaynaynaa in aan dhan walba oo nolosha ah aan ka gudbi doono maxaan ku yidhaahdaa haddii ahaan leed horumaradii iyo wax walba oo sameeyo qof asaageen oo aragga qaba sidaasna waxay ku suurtageli kartaa annagoo iskaashana maxaan ku yidhahdaa maskaxdeena iyo caqligeena iyo garashadeenna maxaan ku yidhahdaa isku keena hal meel isugu keena kadibna waan ka gudbi karnaa hadduu ilaah yidhaahdo haddii aan u guda galo barnaamijyada aan isleenahay waa qaban kartiin oo noo soo socda barnaamij qof walba oo meeshaan joogo wuxuu u baahan yahay in oo noloshiisa ku filnaado oo maxaan ku yidhahdaa shaqo oo helo oo maxaan ku yidhahdaa oo isku filnaansho dhaba oo gaaro qof walba wuu u baahan yahay anigaan idin hadlaayo waa u baahanahay wax walba oo dhanka nolosha ah gaar ahaan shaqada waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo in aan maxaan ku yidhaahdaa annagana aan hormuud ka noqon doono hadduu ilaahay noo kaso in qof walba oo annaga naga mid ah iyo dadka nala midka ah ee asaageen ah aragga naafada ka ah in ayagana ay heli doonaan nolol ku filan oo qof walba maxaan ku yidhaahdaa uu soo dhacsan karo noloshiisa waxyaaba badanna waa rajaynaynaa hadduu ilaah yidhahdo waxyaabaha aan rajaynayna inaan qabsanno waxaa ka mid ah hadduu ilaah yidhaahdo in aan bulshadan wacyigeeda bedelno maxaa yeelay bulshada waxay naga aaminsan yihiin in maxaan ku yidhaahdaa aan nahay dad aan waxba wax kasoo qaad lahayn oo maxaan ku yidhahdaa waxay naga aaminsan yihiin dad aan waxba qabsan karin waxay naga aaminsan yihiin dad dhintay oo maxaan ku yidhaahdaa dhimasho sugayaal ah keliya oo nolosha maxaan ku intay ka dhammaanayso uun iska sugaayo ay naga aaminsan yihiin ma aaminsana inaan isku imaan karno mana aaminsana inaan wax qabsan karno mana aaminsana inaan horumar samayn karno taas yaa laga rabaa annagaa nagala rabaa inaan sameyno golaha barbaarta aragla runtii waa u mahad celinayaa inta maxaan ku yidhaahdaa juhdiga iyo maxaan ku yidhahdaa gelisay iyo dadaalka faraha badan waxaan rajaynayaa inaan qalbiyada iyo maskaxda ka mideysnaan doono maxaa yeelay dhallinyaradeen haddii aanan maxaan ku yidhaahdaa aan isku imaanin oo maskaxda iyo caqliga iyo garashadii aan hal meel isugu keenin runtii maxaan ku yidhaahdaa waan kala qoqobanaynaa oo waxba ma materi karno marka si aan bulshada wax uga bedelno aan
annaga marka hore waxa iska bedelno sidaad hadalkii ku jirtay annaga aan waxa iska bedelno dadka aragga naafada ka ahna runtii ma aha naafa ma ahane maxaan ku iraahdaa xubintii aragga bisay la yihiin inta kale way leeyihiin runtii waa ogtihiinoo dad badan oo naafo ah oo horumar gaaraa jiro adduunka sidaa ogtihiin dad badan oo waxaa jira sheeg nolosha horumarka gaaray oo ayagan haddana aragga naafo ka ah weliba waxaa jira dad aragga iyo dhegaha isku darsadee maqalka oo haddana horumar sii sameeyey annaga marka yaanoo diidaya inaan horumar sameyno annaga nagu xiran tahay inaan sameyno haddii aan aamino inaan wax qaban karnana wax badan aan qaban karnaa runtii hadalkan waa idinku badiyaa u malaynayaa ahmiyadda ururka iyo heerarkii oo soo maray iyo asaaskiisana waan filayaa inaad dhammaantiin ka bogateen waqtiga salaada oo la joogo awgeed inaan halkaas ku simaan rabaa laakiin waxaa idinka codsanayaa markii aan barnaamijkan hadda aan ka baxo xiriiriyaha kadib qof kasta oo meeshaan joogo in uu noo weydiiyo magacyada qof kasta magaciisa saddexan inuu sheego kabacdina oo fadhigiisa ku laabto si maxaan ku idhaahdaa qofka nagu cusub iyo qofka maxaan ku idhaahdaa hore u joogi jiray la isku fahmo si la isku barto macnaha qof kasta magaciisa waxaana aad u salaamayaa runtii golaha barbaarta aragga la meel kasta ay ka joogaan gudaha iyo dibadda waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin runtii aad baan idiin bogaadinayaa waxaana jeclaan lahaa in kulankan isbarashada ah maanta uusan intaas ku ekaanin hore u sii socon doono oo bilow u noqon doono fursadaha guulaha ee hor yaala waana bilowgii guulaheena insha Allah taala waan rajeynaynaa in intaan in ka badan horumar fiican aan gaarno oo maxaan ku iraahdaa ay sheeg aan bulshada aan wax la qaybsan doono kulanka weli ma dhamaanin maanta oo jimco ah anaga iska leheen oo maxaan ku iraahdaa barnaamij noo gaar oo ahaa runtii xiisahana weli dadka qaarkood kama xiisa dhicin inay ii sheekeeyaan laakiin waqtigu uun baa nagu yaraaday waxaa noo jirta qayb kale oo barnaamij oo dalxiis yar oo kooban noo jira dalxiiskaas duu ilaa yiraahdo waxaan rajeynaynaa asigana inuu saacad gudaheed oo noo soo gabagabeysmi doono hadduu ilaa yiraahdo aad baan idin salaamaya warkiina badiya u malaynayaa aad u mahadsantihiin gabdhi iyo wiilal kasoo qayb galayna waan maxaan ku yiraahdaa bogaadinayaa waxaa idin rajeynayaa horumar farxad caafimaad nolol in aad ku noolaataan hadduu ilaa yiraahdo iyo barwaaqo insha Allah taala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب سلام وإحسان وصبر وجيرة وأفعال خير تستزاد بها الرتب وإحسان ظن في الإله